nin aad u dabeecad xumaa ayaa wuxuu ula noolaa xaaskiisa. xaasku waxay ahayd ruux alle ka baqda oo dabeecad wanaag Ilaahay ku manaystay. dhibaatadani ku sabri jirtay maalin ayaa labadoodii muranka dhex dilaacay sidii caadada ahayd. ninkii ayaa u gacan qaaday xaaskiisa isagoo xanaaqdiisa ka tambadiyey. feer iyo cijo sidii ugu waday islaantii ayayna sii daro islaantii dhimatay. ninkii waxaa soo food saaray walwal iyo xaalad adag. isla markiiba wuxuu u tagay nin ay qaraabo ahaayeen. arrintii ayuuna u sheegay. ninkii ay qaraabada ahaayeen ayaa wuxuu siiyey talo, wuxuuna kula taliyey inuu raadiyo wiil dhalinyaro ah kadibna uu gurigiisa ku casuumo. markii uu guriga soo galana uu qaarijiyo, isla markaana uu garab dhigo islaantii dhimatay si loogu maleeyo ruux la tumanaya islaanta. ninkii sidii buu yeelay, wiilkii ayuu gurigiisa ku casuumay kadibna wuu qaarijiyey. aad ayuuna u farxay, wuxuuna u yeeray ninkii ay qaraabada ahaayeen si uu uga mahad celiyo talada uu siiyey. waxaa albaabka soo garaacay ninkii ay qaraabada ahaayeen. arrintii ayuuna u sheegay, lacag fara badanna uu siiyey. laakiin ninkii ay qaraabada ahaayeen ayaa wuxuu ka codsaday inuu arko wiilka la dilay, mise waaba wiilkiisii. qaracan iyo naxdin ayuu meeshii kala tegay. haddaba weligaa iska ilaali inaad qof dulmi galay aad dulmigiisa ugu helayso walow walaalkaaba ha noqdee.